Jamal Khashoggi, prominent Saudi journalist and Washington Post columnist, has gone missing after visiting his country's consulate in Istanbul. We knew that they would try to sweep the whole thing under the rug. Mareykanka sidee buu u qariyay dilka Jamal Khashoggi? saxafigii caanka ahaa ee Sacuudiga Jamal Khashoggi oo wax ka qori jiray barta Washington kadib markii uu booqday qunsuliyadda dalkiisa ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Jawaabaha caalamiga ah ee Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa u muuqday kuwo dhaliilayay wariyaha. bishii Oktoobar 2018 dunidu waxa ay ka warheshay dilkii arxandarada ahaa ee wariye Jamal Khashoggi kaas oo wax ka qori jiray wargeyska caanka ah ee Washington Post. Khashoggi waxa uu dhuundaloolay dawladda dalkiisa Sacuudiga balse xiriirka uu la lahaa qoyska talada haya iyo si gaar ah dhaxal sugaha boqortooyada Mohammed bin Salman ayaa xumaa iyadoo Khashoggi uu noqday nin saameyn ku lahaa oo doodista xurriyadda hadalka iyo xuquuqda insaanka gudaha boqortooyada Sacuudiga bishii September 2017 isaga oo ka baqayay argoosi ayuu u baxsaday dalka Mareykanka. waxa uu go'aansaday dhowr isbuuc ka hor inuu tago dalkiisii sababtoo ah waxa uu dareemay inaanu marti ka ahayn wadankiisa. 2018 Jamal Khashoggi ayaa u socdaalay qunsuliyadda dalka Sacuudiga ee Istanbul si uu uga soo qaato waraaqaha guurka. waxaana weerar gaadma ah ku qaaday koox ka tirsanaa shaqaalaha dawladda oo la sheegay inuu soo diray Amir Mohammed bin Salman iyadoo ay alkuntiisii ama gabadhii uu guursan lahaa Khashoggi ay ku sugaysay banaanka safaaradda. waxa ay filaysay oo ay aaminsanayd inuu soo baxayo isagoo sita waraaqihii sharciga ee guurka. awoodiisii uu uga dagaalamayay xorriyadda hadalka saxafiga iyo saxaafadda iyo xuquuqul insaanka waxaana isaga u muhiimsanaa qaybo ka mid ah sharciga baarlamaan ee dalka Sacuudiga in aanu la lumin. si aanay taasi u dhicin Jamal Khashoggi ayaa ku noqday laf dhuunta u gasha Amir Mohammed bin Salman. ugu dambeynse waxa ay ku hogaamisay in laga taqaluso. Brain Fogel waa filim sameeyihii ku guuleystay biladda duubista filimka documentary-ga Netflix 2017 kaas oo lagu magacaabo Icarus. filimkiisii cusba ee mucaaradka ee soo baxay ayaa ka koobnaa cajalado maqal ah oo naxdin leh, qoraallo iyo muuqaallo laga duubay howlgalkii Sacuudiga ee lagu soo afjaray Jamal Khashoggi kaas oo xubnaha meydka ee jidhkiisii lagu shubay jawaano markii la jarjaray. documentary-ga ayaa soo bandhigay muuqaallo ceeb ah oo ay ka mid yihiin dadaalka kooxda Sacuudiga ay ku doonayeen inay ku qariyaan dilka kadib markii ay ugu labiseen dharkii Jamal Khashoggi nin isaga loo ekeysiiyay ee ka mid ahaa kooxdoodii dilka geysatay taas oo ay ku hor istaageen kamaradaha ammaanka ee qunsuliyadda si loo tirtiro cadeymaha muujinaya dilkiisa iyadoo loo isticmaalayay qalabka wax basaasa ee loo yaqaano Pegasus spyware tool oo uu Sacuudiga ku eedeeyay inay ku rakibeen telefoonka Jamal Khashoggi si ay u dhageystaan wada sheekaysiyada Khashoggi. waxa ay ogaadeen inuu la xiriiray nin dhalinyaro ah oo mucaarad ku ahaa boqortooyada ee ku noolaa dalka Canada kaas oo lagu magacaabo Umar Abdulaziz. Pegasus waa aalad jaajusnimo ay sameysay shirkadda Israel ee kooxaha NSO kaas oo si qarsoodi ah loogu rakabi karo telefoonada gacanta iyo aaladaha kale ee ku shaqeeya iOS-ka iyo Android-ka. sida uu filimka uu ka sheekeynayo Amir Mohammed bin Salman ayaa sidoo kale isku dayay in uu dabagalo Abdulaziz. Sacuudiga ayaa kooxo sirdoon ah daba dhigay Umar Abdulaziz gudaha dalka Canada waxa ayna ku qalqaalin jireen inuu Sacuudiga ku soo laabto si ay caan uga dhigaan sida iyaga oo u dirayay fariimo ay ka mid ahayd inuu amiirku jecel yahay una malaynayo in aad tahay jilaa weyn. mucaaradku waxa uu sidoo kale daaha ka qaaday dadaalada baahsan ee lagu doonayay in lagu qariyo dilkii Khashoggi. Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay Jamal Khashoggi in lagu xiriirinayo arrimo ku saabsan argagixisanimo iyo xiriir uu la leeyahay kooxaha IS. inkastoo uu ku cusub yahay Oscar guushii Icarus, Fogel ayaa sheegay inay adkeyd in la helo howlgalayaal doonaya inay sameeyaan mucaarad waxaana lagu soo rogaliyay oo kaliya taageerada aasaaska xuquuqul insaanka.
inkastoo dokumentiga la daahfuray xafladii filimka Sundance ee 2020 si dib loogu eego, taas oo markii dambe lagu ogaaday in dhaqaale xooggan uu ku bixiyay Sacuudiga si aan loo baahinin.